Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti wacan daawadayaal meel walba aad joogtaan. Waxaan idin leenahay kulanti wacan oo wanaagsan. Waxaad ku soo dhawaataan wararkii kooxda Barcelona aanu kaga hadlaynay suuqa kala iibsiga. Aanu ku bilownay laacabka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Chile ee Arturo Vidal oo 32 jir ah ayaa qayb ka noqon doona heshiiska ay kooxda reer Spain ku doonayso weeraryahanka Inter Milan ee Lautaro Martinez oo 22 jir ah. Wargeyska Marca ayaana sidaa qoray. Inter ayaa lagu soo waramaya inay kaliya diyaar u tahay inay Samuel Umtiti ama uga soo qaadato Barcelona oo aan qayb ka ahayn heshiiska Lautaro Martinez. Labada kooxood ayaa wada hadallo degdeg ah wada yeelanaya maadaama ay Barca aysan qarsanin xiisaha ay u qabto xiddiga reer Argentina ee Lautaro Martinez, laakiin diyaar uma ahan inay bixiyaan lacagta lagu burburin karo qandaraaskiisa oo gaaraysa 111 milyan oo euro. Waxay rajeynayaan inay hoos u dhigaan qiimaha ay ku iibsan karaan dhowr ciyaartooy ay ku jiraan Arturo Vidal iyo Junior Firpo. Umtiti ayaa sidoo kale lagu sheegay saxaafadda Spain, laakiin Calcio Mercato ayaa ku adkeysanaysa in Inter ay shaki badan ka qabto daafaca dambeedka dhexe. Nerazzurri ayaana la dhacsan in la sheego in kaliya diyaar ay u yihiin inay amaah ku qaataan oo aysan qayb ka ahayn heshiiska Lautaro Martinez. Umtiti waxa uu qabay dhibaatooyin badan oo dhaawac ah kadib markii uu 25 milyan oo euro uga soo dhaqaaqay kooxda Olympique Lyon ee sanadkii 2016. sidoo kale waxaa la xiriirinayaa kooxda Napoli si bedel looga dhigo daafaca reer Afrika ee Khalid Koulibaly oo isagu wararka kala duwan ee suuqa ay tilmaamayaan in kooxo kala duwan oo waaweyn ay baadigoobayaan. Kulanka dib loogu bilaabi doono horyaalka liiga ayaa sidoo kale la ogaaday. Waa kulan derbi ah. Horyaalka liiga ayaa lagu soo waramayaa inuu dib u bilaaban doono 12 bisha June kuna beegan habeen Jimco ah iyadoo lagu furi doono kulanka Seville Derby ee u dhexeeya kooxaha Seville iyo Real Betis. Waxaa warkan sheegaya barnaamijka Cadena Cobes El Partidiso kaasoo sheegay in warkan uu yahay mid rasmi ah lagana dhigi doono 28 bisha haatan ee May loona diidi doono dhammaan kooxaha liiga. Warkan ayaa ka daba imaanaya kadib markii ay bilowgii bishan wargeysyada AS iyo Cadena Zero dhigeen in la qorsheynayo in horyaalka liiga dib loo bilaabo bartamaha bisha June si loo dhameystiro dhamaadka bisha July. Agaasimaha Seville ee Monchi ayaa yiri ma jirto qaab fiican oo uu la liiga ku soo laaban karo oo ka fiican kulanka derbiga, waxaana dhammaan sugeynaa soo laabashada ciyaaraha. Horyaalka liiga ayaan la ciyaarin tan iyo ilaa bartamihii bishii March, waxaana loo joojiyay iyadoo loo ballansanaa kulankii Seville Derby oo ka dhici lahaa garoonka Roman Sanchez Pizjuan Stadium yiraahdo. Guud ahaan waa naga inta wararkii kooxda Barcelona ee aan idinku soo gudbinaynay barnaamijkeenan kooban. U share garee saaxiibada si ay ula socdaan adiga oo subscribe saaraya channelka Barca 252. mahadsanidin.